waxaan salaamayaa ugu horeyntii shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan 23 February 2017 ayaa la ii magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimada qiyaastii 1247 maalmood ayaa ka soo wareegtay muddadaas 3 sano iyo barka ah waxaan dalka Soomaaliyeed ugu adeegayay daacadnimo karti iyo hufnaan anigoo aaminsan inay ahayd waajib dalkayga iyo dadkayga iga saaran muddadaas xukuumadda iyo aniguba waxaan ku guuleysanay howlo waaweyn waxaa ka mid ahaa inaan dib u habeyn ballaaran oo dhaxalgal ah ku samayno ciidamada qaranka oo maanta soo gaaray meel ay u diyaarsan yihiin inay la wareegaan amniga guud ee dalka inaan dib u habeyn ballaaran ku samaynay nidaamka maaliyadda dalkeenna oo dunidu noo soo istaagtay soo celinay kalsoonidii uu caalamku nagu qabay kuna qabay hay-adaheena dhaqaale oo inoo saamaxday in laynaga cafiyo deyn lagu lahaa dalkeenna muddo dheer dadaalkaasi waxa uu ku dhacay soo jeed iyo iyadoo la geliyey wakhti badan waxaan la dagaalanay musuqmaasuqa waxaan gudbinay shuruucdii ugu badnaa ee xukuumadda ay gudbiso waxaan ku guuleysanay mushaarka shaqaalaha bixinteeda iyo mushaarka ciidanka oo bil walba laga soo bilaabo Janaayo 2017 uu qof waliba qaatay waxaan ku guuleysanay dowlad wanaag iyo amaano waxaan ku guuleysanay annagoo dib u soo nooleynay sharaftii ummadda Soomaaliyeed si loo ilaaliyo dhammaan guulahaas ay xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed gaareen dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo qayb ka ahaa rabana in la sii joogteeyo waxaa lagama maarmaan ah ilaalinta nidaamka awood isku wareejinta dalka oo si dimuqraadi ah u dhacda anigoo gudanaya waajibka arrinkaas iga saaran ayaan xukuumadda faray inay ka shaqeyso in dalku aado doorasho lagana fogaado muddo kororsi oo dhalin kara khalkhal siyaasadeed mid amni iyo mid dhaqaale waxaan ka shaqeynay isu keenidda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka isugu keenay magaalada Dhuusamareeb si go'aan loo dhan yahay looga gaaro doorashada hadda dalka ku soo fool leh waxaan isku raacnay in la isku soo laabto 15 Agoosto si loo dhammaystiro geedi socodka doorashooyinka dalka inkasta oo kulamadii Dhuusamareeb horumar fiican laga sameeyay haddana waxaa muuqataa in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay wixii maanta ka dhacay golaha shacabka fikirkaas oo aan mar hore ka digay oo aan aaminsanahay inuu keeni karo khalkhal siyaasadeed dalkana dib u celin karo ayaan waxaan mar kale xasuusinayaa ummadda Soomaaliyeed in dalka 4 sano mar ay doorasho ka dhacdo iyadoo xukunkii ay qoro isu dhiib inay tahay dhaqan sax ah oo dalkan lagu bartay ayna tahay kulligeen inaan ilaalino anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed anigoo og inaanay ku jirin ajandaha anigoo og inaan laga doodin anigoo og inaan loo codayn anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato si aan ugu tiro shacabka Soomaaliyeed qaybna aanan uga noqon khalkhal iyo dib u dhac siyaasadeed oo dalka ku dhaca mid dhaqaale iyo mid amni mid bulsho ayaan sida ummadda Soomaaliyeed ugu baratay waxaan u noqonayaa tusaale inaanan marna halkan xukun u joogin laakiin aan u joogay inaan shacabka Soomaaliyeed u adeego waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha oo fursad ii siiyay inaan shacabkayga u adeego
golahaygii wasiirada oo igu garab istaagay inaan dalkan samata bixino shacabka Soomaaliyeed oo hiil iyo hooba ila garab taagnaa iina ogolaaday inaan soo hor istaago oo aan u shaqeeyo mar walbana garabkayga taagnaa iina hiiliyay waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada Soomaaliya oo xilliyo adag iyaguna na soo garab istaagay ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa barwaaqo dalkan rajo ayaan ka leenahay kulligeen dalka ayaa kulligeen inaga weyn cid waliba waa inay aqbashaa in dalka loo turo maanta waa maalinteedii aniga ayaa u turay dalka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay waxaan idinkugu adeegay awooddii ugu sarreysay oo aan awoodo haddii ay wax iga khaldameen waxaan idin weydiinayaa inaad cafisaan بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دتك الصومالية إذا لهانتي طبعا سيدا داوتين وكاسا شركة جرائد وقبتي رئيس وزراء الصومالية مدن حسن علي خير وتنازلي سيوناكسن أيونا يالي مقال كان وافرين ودري عد كستا أو مركزي مسؤولية هايسة أما سوق قوتي إن دلك دتك سيدا وتنازلشو oo aysan eegan danteeda iyo xilkeeda kaliya iyadoo muran gali karta xataa inay ku dhaco yeelato inay ka tagi karto waxuu dibna waxa xasuusinayaa muuqaalkan Kampala Accord markaasi madaxweynaha Abdullahi Farmaajo waqtigii ra'iisul wasaaraha ah Sharif Sakiin iyo ay wadeen saano kale mooshinka oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihii waqtigaas joogay madaxweynihii waqtigaas joogay mudane Sheekh Sharif iyo madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaaraha laftigoodu waxba calool xumaa isku maysan hayn laakiin qorshaha ugu weyn waxa uu gudoomiyaha baarlamaanka oo extension raadinay dabcan madaxweynuhuna uu raadinay marka xaqiiqda la isku sheego Sheekh Sharif laakiin saas oo tahay hadana calool xumaa isku maysan muujin oo rag isku wanaagsan siyaasadda ay ka dhaxayso laakiin kala fikir duwanaaday ay isku arkeen Sheekh Sharifna wuxuu ku khasbanaaday in markaasi la sameeyo muxuu ahaa ra'iisul wasaarihii la rido oo mataqaanaa xukuumaddiina muddo kordhin loo sameeyo si ra'iisul wasaare cusubna uu soo dhiso tabtii oo kale aad moodaa in ay maartay xaaladdu ay taagan tahay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre dalka iyo dadka shaqo badan ayuu soo qabtay abaal ayaa looga hayaa waa markaasi loo qirsan yahay nin dadaal badan bilaa corruption ah si fiican u dadaalay ayuu ahaa waana u haynaa abaalka haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed ee xalaasha ah shalay waan jeclayn maantana waan jeclaan doonaa birina waan jeclaan doonaa مسؤولينta dalka oo daacad ah wixii markaa siyaasiyiintu isqaba karaan dhexdooda iyaga ma taqaanaa wixii ah waa dhexdooda laakiin madaxdeena hadii ay wanaagsanaadaan daacad noqdaan weligan waa jeclaanayna hadii ay joogaan iyo hadii ay tagaan khayr waan in daayir mustaqbal ayuu siyaasadda ka leeyahay dadka qaarkood weli waxay ku adkeysanayaan waxaan in qorshe la isla ogaa uu yahay even haddaan la isla ogeyn laakiin khayr way soo mari doontaa insha Allah chance ama uu madaxweyne ku noqdo ama uu mar kale ku hanto xilka ra'iisul wasaare ama uu madaxweyne ku noqdo inta way soo mari doontaa way waan in daayir weeyaan oo da'deeda ayuu hayaa siyaasadda aqoonteeda iyo kartideedina uu hayaa waana u dadaalay dalkiisa iyo dadkiisa uuna markaasi si wanaagsan ayuuna yeelay uuna u tanaasulay siyaasiyiinta mucaaradka ay marka qaarkood dhahayaan 19 lagu laabanaya ama intay ka dhacaysa ama la burburaya ama loo xismaya ha ku daydaan khayro oo meel ka murmo jooga oo anu aan aaminsanahay maanta hadduu dhihi lahaa baarlamaanku markii way badboodayeen baarlamaanka gacanta taaga iyo weliba way tuureen way isxigtay way jireen dad badan oo gacmaha taaga laakiin qaar baxta labada gacmo taagaya xaqiiqda wanaagsan laakiin waxa halka ka dareemayna in ra'iisul wasaaruhu tanaasulay danta uu tanaasulay sharaftiisa asaguna uu ilaashaday karaamadiisa markaasna uu tusay dadka in aan shaqadu muhiim ahayn si kastoo uu kala aragti duwanaayeen isaga iyo madaxweynaha sida muuqatan isaga iyo madaxweynaha colaad hadda xun oo isku hayaan ma jirin madaxweynuhuna maanta bayaanka uu soo saaray uu ku amaanay waajibaadkiisii shaqo uu ra'iisul wasaaruhu gutay ra'iisul wasaaruhuna sidoo kale uu mahad celiyay hadda madaxweynaha iyo chanceski uu siiyay inaga marka dalka inoo muhiimsan dadka Soomaaliyeed dalka inoo muhiimsan inagu waynu dhimanaynaa raggan waxa weeyaan biri way dhimanayaan markay tooda soo gasho way la duqduqoobaya waa la waxismaya laakiin dalkani waa tacab jiil oo carruurteena iyo awlaadda ka sii dambaysa ayaa munaafacaadsan doona marka insha Allah dowladnimadeenu taageerina madaxda wanaagsan hadii uu shaqo hayo madaxweynuhu hadduusan hayn ra'iisul wasaaruhu sidoo kale Xasan Cali Khayre de Farmaajo oo shalay shaqo ma hayn sidoo kalena la garab sii jiray shacabku way taageeri jireen xisbi walaha xisbigiisa dad badan baa ku jiray wixii uu garab u baahnaan waa la siiyay khayrna insha Allah chancekiisu heli doona Farmaajona sidoo kale iyo dowladda muhiim ah dowladnimada mar walba inuu garab taagnaano waan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.